السلام عليكم ورحمة الله وتعالى. مقال كنا حنكوي إن حكمدي ورهيري تشارلين حراويستي ولي waxaan ahaanaya xaraawiste sidaas ayaan siyaasi kastana kaga sareynaya ma jiraan adduunka wax joogtaa xitaa dhibaatooyinkeena ku dhaho noloshayga waxaan la soo maray dhibaatooyin aanan yareen balse dibnahaygu ma oga ay way dhool cadeeyaan qofku ka qalbi wanaagsan yahay uu ka dhibaatooyin badan yahay ina saaxiibka baahidiisa ka taageerta wadayal balse inay waqtigeeda siisaa arrin dayalkiisa wata noloshu way fool xun tahay haddaad dhex gashid oo fiirsatid gaajaduna damiir ma laha miyaradeedu saaxiibadayda ugu wanaagsan oo hadday aragtaan iyo ooyiya iyadu ma qashasho ha ka baqin odhaahda dadka kale ka sheegayaan iyadu waa aragtidooda ma aha waaqicaaga in badan ayay fikirnaa in yar bayse dareennaa ha ku fogaan ammaanta niyad dhiska sidaanan u noqon munaafiq hana ku dheeraan run qayaxida aanan lala gaban sidaana dadku ku naceen lagu deerin qalbigaagu waxa ugu wanaagsan haysatid si wanaagsan u daryeel fikraddu waxay timaadaa markuu rabitaan xoogan yimaado sidaad u noolaato wayna ka gungaadhaa ismoogaysiinta mar haddaan cidba wax yeeleeneen cid walba siday doonayso waxa kaga sheegtay adu jidkaagu sii raac ha garaacin albaab maalmaha kamid ah laga xidhay ee raadi albaab intaadan soo gaadhinba ku sii dareemaya waa lama horaan in qofun ka farxisaa balse waxa ka sii wanaagsan in naftaada ku horeysid fashilku dhib ma laha geesinimada waxa kamid ah heer dadku ku qoslaan inaad naftaada gaarsiisid ninkaan ogeyn karaamka Ilaahay uu siiyay waxa uu sahlan u noqdaa gabadh taqaana meelaha uu ka jilicsan yahay arrinka waxa lagu siiyay ka sitaa waxa laga qaadayna ka soo hara wadhool cadeynta waxa jira dad xifteeya erayadaada aad u aqoon inay macna leeyihiin jeclaanayna codkaaga aan u aqoon inuu dhadhan leeyahay noloshu way macaan tahay balse waxaad u baahantoon geesinimo waa lama horaan inaad jeclaato naftaada inahaas ku soo gabagabeynaa oraahiyadii Charles Chaplin iyo xikmadihiisii. Wassalaamu calaykum.